سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها شرفتا احترامك كرامدا iyo mudnaanta intaba inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad kaga sugantihiin farxad qab iyo bashbash ayaan idin rajaynayaa halka aad si weyn noogala socotaan waa janal weynihi siraacaad kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal hor leh waad ku mahadsantihiin dhammaantiinba meel walba daafaha caalamka aad kaga sugantihiin isi walbood muuqaalka marka aad u daawanaysaan inta caafimaad qabtana ilaahay ha u ziyaadiyo inta naga xanuunsan allah inoo caafiyo inta markaa waqtiga u saamixi waaye xaggii loo badnaa ama aakhira aadayna ilaahay ha u naxariisto dhammaanteen waxaan saaxiib ku nahay samaha iyo dadnimada iyo soomaalinimada ayaan dad ku nahay waxaana mar walba idin leeyahay guuleysta meel walbaad ku sugan tihiin cadowgiin ha jabo haddii marka kugu horeysa oo janalka aad la kulanta ay tahayna xaggaaga naga qorxo subscribe noo saar kambaleel ku furta videoga noo like gareeya siina share gareeya meel walbaad ku sugan tihiin yaa loo kala harin intaas yirista xaggiina ha ahaato dhiirigelintana waan idinkaga fadhinaa mar walba xaggiina ayaan u deynaynaa anagana wax walba oo xaqiiqo ah oo runta ku salaysan oo markaa aanan iyo markaa garabaysi aanan ku jirina xaggeen ayaad u deynaysiin muuqaalada markaa sida darandooriga inoogu soo dhaco ama aan u helnana waxaan si toos u keenaa maxkamadda weyn ee sariicaad si markaasi loo go-aamiyo loogu taageero inta wanaagga ah inta xumaanta ana sida ugu macquulsanaya markaa wax aan ugu faa'iideyn karno dadka ama ugu sheegi karno aan ugu sheegno si aan wax badan ugu gudbino wax badanna aan isniraano ugu hagaajiyo haddii ay markaa inoo dhacdana aan ugu hagaajin doono muuqaalka maanta martida iyo markhaatiga inoogu ah janal weynaha sariicaad ama maxkamadda weyn ee sariicaadna waxa uu yahay muuqaal gilgilay social media shalay ilaa iyo habeen horena wixii dhacay waa dhaceen oo dalka Djibouti waxaa gilgilay showgii Maxamed Maama oo runtii sida loo maleynayay sida loo haystay iyo halka uu gaaray iyo halka markaa uu wax sameeyayna caqliga bini'aadamka ah ee ka bari tahay oo yacni aanan maskaxda bini'aadamka kusoo dhacaynin ugu dambeyntiina dadka waxa ay ku sheegeen ama ay yiraahdeen meel kale ayay noqonaysaa oo waan idinla wadaagi doonaa xagga runta ah iyo xagga samaa iyo waxa markaas ka jiro intana waan idinla wadaagi doonaa muuqaalka gilgilay markii uu stage-ka soo fulay waa kan ee baldaawasho wacan sida aad soo aragteen Maxamed Maama stage-ka marka uu soo fulay waxaad isleedahay magaaladii ay ku nooleed 500,000 oo kun oo qofood yacni Djibouti dadkeeda aad u yaryihiin sida marka taariikhda lagu sheego intiiba waxaad isleedahay saddex marka loo qaybiyo laba qayb waxay xaadir ku yihiin ama ay ku soo xaadireen bashowgii Maxamed Maame taas oo shaki weyn dhalisay dadka qaarna ay meesha doonaan ay wala carareen laakiin wixii ka xaqiiqo ah oo aan idin hayana aan idinla wadaagi doono oo miiska aan saaran doono wixii ka been ahna aanan marnaba ku taageerahayn oo waxaan markaas aan leenahay ninka way ku ahaatay waad guuleysatay oo halka aad rabtay iyo halka si weyn way ku gaarsiiyeen inta dhalinyaro ee markaa ku garab istaagtay ee magaalada Djibouti kugu soo dhaweysay kuna garab istaagtay in aad markaasi waxa aad u socotay barnaamij ah aad qabsatid noocaasna ay u dhacdana waan u mahad celinaynaa adiga anaga kaaga horeyno anaga u mahad celinayno oo leenahay wax weyn ayaad sameyseen dadnimo leh iyo si sharaf leh ayaad u sameyseen mansab iyo gobnimo waa leedku yaqaanaa maanta waxaad noqon doontaan hooy ay dadka oo dhan u soo wada cararaan oo xitaa kan Yurub joogo oo fanaan ah oo idin imaan doono showyo badan oo xaqiiqda maskaxda Soomaalida ku jirana xaggiina ayay ka dhaceen walow ay magaalooyinka ka qaar idin la qaybsadeen haddaba showgii sidan ogaa u dhacay iyo quruxda aad aragteen u dhacay dad ayaa calaamatu su'aal dul dhigay oo markaasi wax ka keenay hadal dadka hadalka ka keenay waxa kamid ah dad yow badan oo markaas ama comment ahaan ha kaga keenaan ama dhinaca kale ha kaga keenaan ama la yaab ay ku noqotay markii ay arkeen showga habka uu dhacay ha noqoto amaba dad markaa ay ishayeen ha noqoto waxa markii la isku keeno dadka isaga mooyaan taageersan mooyaane inta ka soo horjeeda waxay hadalkooda u dhigeen sidan oo ah markaa in haddii macnaha showgan noocan u dhacay inaysan suurtagal ahayn in show lacag laga bixiyay uu yahay 5,000 faran ma wallahi wax lagu galayay kulay laakiin lacagta Djibouti lacag yar oo fiican lagu galayay dadka soo xaadireen dad aad u fara badan ay ahaayeen qalqiyada soo xaadiray afarta jaha ama saddexda jaha ee stage-ka tan wajahada iyo labada garbaha ka marayeen dad ayaa buux dhaafiyay iyadoo aan arkayna showga inuu stage-kiisa xataa maama gilgilay ee ku sigtay xitaa in naqaska ku dhago si ay dadku u xiiseynayaan darteed waxa uu la soo baxay heeso badan oo markaa ay Soomaalida aad u jeceshahay aadna loo dhageysto showgani dadka hadalka ka keenay waxa ay sheegeen in markaa yacni dadka soo galay oo dhan bilaash tikidyada lagu siiyay si uusan showgaasi u baaqanin si uusan sumcad darro ugu noqonin
dalka jabuuti iyo dadkiisaba laakiin hadalkaasi been weeyaan hal arrin oo run ah ayaa jirta oo laakiin ku hoos jirto halkaas arrin oo runtaana waa arrin meel walba oo xaflad ka dhacayso ama meel walba oo aroos ha noqdo ka dhacayo ama barnaamij walba oo dhacayo waa arrin inta ugu dambeyso oo mar walba iska dhaco ciyaar shaleemooley dhinac kale aad kugu dhigo inta shaleemo geli jirtay markii fiidiyoga oo filimka sii dhammaad yahay oo hal feer ama laba feer ay harsan yihiin waad ogeedeen wixii banaanka joog waa la iska soo dayin jiray gudaha ayay saas kusoo galaan markii taa laga reebo showga sidiisa kale ayuu u camirnaa sidiisa kale ayay makhluuq fara badan u joogeen sidiisa kale ayuu sida la rabo ugu dhacay markii ay gaartay gabagabadii iyo guntii ayaa dadka inteeda hartay ama inta harsanayd layska soo daayay dadka waxay isku qaldayaan waa labada arrinkii koowaad sida loogu talagalay ayuu showga u qabsamay tikidhadii inta loogu talagalayna waa la bixiyey walow markaa qalalaasi iyo ismaandhaaf jiray darteed aanan tikidhadaba aysan xoog usii badnayn marka hore oo in badan laakiin in ku filan ama fanaanka in ku filan oo markaasi show u qaban karo waa la sameeyey ticket intaas waa la leefo hawada lagu dubtay inta xigtay oo markaas soo gashay waxa ay ahayd inta ugu dambeysay oo markii showga uu gabagaba yahay inta soo gashay marka dadka waxay kala saari laayihiin khalqiga faraha badnaa ay arkeen ma kuwii dib ka soo galayba mise waa kuwii markaa horey tikidhada iyo waqtiga u geliyey ee markaasi u xaadirka ahaa lacag badanna ku bixiyey sida ay ula kulmi lahayn fanaankooda maame xaqiiqda waxa ay tahay inta marka hore indhaheen ay qabanayaan iyo in kasii badanba xaqiiq waxa ay markaa xaadir ku ahaayeen dadka waxayna ka mid ahaayeen lacagtooda la baxay oo showga fakta hore soo galay inta dambe dib uga soo biirtay xagga dambey joogeen horta waqtiga uguma saacideynin laakiin maxamed maame showgan wuu u ahaaday showgan maxamed maame wuu u ahaaday sida uu rabana wuu ugu dhacay waxaana markaa markhaati iyo marag madoonto ah in showgani uu noqday showyada ugu cajiibsan ee markaasi dhacay showyada ugu taariikhda fiican ee markaasi dhacay iskoor cusub oo maamo dhigana meesha ayuu u yaalaa oo dad badani oo fanaaniin ah waa uu ka saameyn badnaa waa uu ka markaa xifaaltan badnaa waa uu markaasi ka nidaamsanaa waa uuna ka lacag badnaa marka loo fiiriyo habka lacagta loo abuurayay amaba dadka khalqiga la casumay ee markaasi showgaasi ku xaadirka ahaa xaqiiqda waa xaqiiq wixii runta ahna marnaba kama gamban doono reer siriicaadna haddaynu nahay waxaan saaxiib ku nahay waa runta iyo in aan markaa runta isla garab taagno qof walba oo soomaali ah oo runtii markaasi heer ku fikirayo waxaan leeyahay walaalkeen maxamed maame runtii haddii aad horumar rabtid xaggaa hore ee aad arkaysid ayuu kaa yaalaa wax walba u dhacay way dhaceen wax dhacana dib uma soo noqonayaan horey u soco waad guulaysatay waxaana rajaynayaa guulo intaan ka waaweyn iyo hamiye intaan ka waaweyn oo aad leedahay inuu kuu hergeli doono dad badan oo soomaaliyan ah walaalahana ay kuu hergelin doonaan showna meeshaa doontaa ku qabsan kartaa barnaamijyadana meeshaa doontaa la tegi kartaa guulayso mar labaad iyo mar saddexaadba sidacaado idinkana waxaad ka leedihiin xagga commentiga ayaa idiin furan fideoga xaqiisa siiya oo like gareeya share gareeya meel dheerna gaarsiiya walaalkeena isgarab taaga oo u hambaleeya showgiisa u dhacay sida quruxda badan in uu midka xigana usii noqdo mid uu kusii farxo ugu hambaleeya muuqaalkani haddii uu kusoo gaaray oo aad intaa nala soo gaartayna mar labaad waxaan ku leeyahay share garee oo asxaab badan la wadaag intaa mid xig ku kulmi doon dhammaantiin waxaa idinkaga sii tagayaa nooli kulanti